الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب. ولد الإسلام غريبا واليوم نراه غريب، وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب. ولد الإسلام غريب وصى بها ديني، في الحل والترحال، في السلم في الحرب، في الأمن في الأخطار. إسلامنا عظيم، 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 إسلامنا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسيني لحية طبنات دروستي أن كشرح منهجك أها وحكوتنا ولبابكي جهادك، وأنا سلينا هاي ميلها حوالي على خرطها إلا إفتيميو ayaa loo baahan yahay. waxaan ugu dambeysay inaan sharxaynay tamkiinka loo baahan yahay in muslimiintu ay ilaashadaan. waa tamkiinka ah in dadka muslimiinta ahi wadankooda iyo dhulkooda iyo ugxantooda ay waardiyeysan karaan oo halkaas marka laga indilaaqo. waxaan kaloo ishaarnaa ayadana oo haddana aan ku daraynaa waxa weeye waxa waajibka ah qofka mustadcafka iyo qofka caajiska ah aan tabar u haynin oo uu ka dhacaya. oo midalan markii la joogay Maka waan sheegnay inaan jihaadku uusan waajib ahayn. dadka qaar kood baa joogay Maka mustadcafiin ahaa oo dib ku jiray aan hatta hijrada aan awoodi karin, waa laga cafin hayay. aakhir zamanka saa la socotaan markii Yaajuuj iyo Maajuuj ay yimaadaan inaan laga hortagin oo laga maartay maxaan ku raahaa laga leexdo oo laga xiroodo oo dadka muslimiinta ay maaragtay ay iska joogaan xusuuntooda iyo maxaan ku iyo buuraha iska joogaan ayaa ku soo aroortay axaadiista. marka maxaa yeelay in laga hortagaa wax hadda ay faa'iideynayso ama soo kordhinayso ma laha, cadad ahaan iyo tiro ahaan iyo awood ahaanba. marka intaas oo dhan in la tixgeliyo ayaa loo baahan yahay. nuqdadan 11 iyo 12 iyo inta nuqdo soo socota waxaan ku ishaaraynaa maadaama aan soo niri jihaadku waa cibaado jamaaci ah oo muslimiinta ayaa looga baahan yahay oo xilka ay saaran yahay. hadda muslimiintuna de kulligood ma wada ahaan karaan madax, wixii ma wada maamuli karaan. marka maamulka dadka muslimiinta maamulkooda oo maaragtay diintooda iyo adduunkooda iyo wax oo dhan ba loo xil saaray, waajibka saaran qayb kamid ah weeye. oo haddii maanta daciif la yahay in dacfanaga laga baxo oo muslimiintu awood yeeshaan, guud ahaan waa la iska rabaa, gaar ahaan cidda ayada muslimiinta mas'uulka ah oo arrinkooda maaragtay loo dhiibay ayaa xilkaadu saaran yahay. oo sida maaragtay maxaan ku raahaa alladhiina in makannahum fil ardi aqaamu as-salaah wa aatawu az-zakaah wa amaruu bil ma'ruuf wa nahuu 'anil munkar. marka jihaadkuna wuxuu ku jiraa ama soo hoosgalayaa الأمر بالمعروف وسوء سجليات والنهي عن المنكر. مركا جود هان مسلمين تا هي الغربة جارهان ضدك حلك وهي مسلمين تا بحلك سارين سيد المسلمين توصل كعلى هايين واجب كسارن يوجدن لهايين وما رت على سيد الله وهي مسلمين تسيد لو قاعد لها تبرتي وباهنتها هاي تاكتي وباهنتها هاي إنها كلا كانوا أيها صار محايل أيها أودي إمكانياتك هي فرصتي هي طاعتي كل أيها هيستا. هذه عيدا أيها أهين مركا وحي لبوده محاكا دلانيا. هورت الدين هان ما بنانا
تنكلا وحوي هذا قف حسن أودوا لهين لبودي أما أصدق شبهيا أما مدو شبينيا تنكلا وحوي هذه آذن ما عرفت ضدك وحنا لو حصلت آذن هين وحكي إيمان إيسا أنا لفتين ناس خلافينا وأضاء كوحة أي جهاد هي أنا وكوحنا وديد هي واسكهر إيماننا marka waxa weeye arinkan aan isku khilaafin wuxuu ku iimaan karaa cidda nooga mas'uulka ah ee maarad ummadu ay ka wada dambayso in halka uu ka soo baxo uu ku fiican yahay tan kale waxa weeye koox in la boodo waxay keenaysaa talo kooxda maxay ula jeedaa danta ay ka wataa yani muxuu yahay meesha tuhuma iimaanaysa wa ilaa hadii ummadu waxay u dhantahay oo dadkooda madaxda ay go'aamiyeen uu yahay tuhmada meesha waa ka baxaysaa marka si koox aysan ugu adeegan magacan jihaadka si koox aysan ummadda u dagaal galin ayadoo dana gaar wadata ayaa waxa laga maarmaana qanawaadka iyo maaragtay meesha loo maraya inay saxda tahay oo muslimiintu sida go'aanka ku qaataan waa si diintu ay ka hadashay weey sida loo qaataa go'aanka waxa dadka muslimiinta oo meel degan inay madax yeeshaan baa la rabaa inay ahlu xal wal aqdi yeeshaan baa la rabaa inay shuura yeeshaan baa la rabaa oo markaas go'aamadooda gudahooda ah ama go'aamada ay kula tacaamulahayaan dibadaha ay ka soo baxaan meeshaas ayadoo la niqaashay oo si fiican loo baarbaaray laakiin haddii meel mugdi ah lala maro waxa dhici karta go'aan aan bislayn ayaa lagu soconayaa baa dhici karta dib baa ka imaanaya waa iska hor imaanaya dad dana gaar ah wata ayaa arrinkii la boodahaya marka si waxa looga baxo dadka muslimiinta madaxdooda ayagoo isticmaalaya shuuro ayagoo isticmaalaya ahlu xal wal aqd isticmaalaya halkaas inuu go'aanku ka yimaado ayaa loo baahan yahay diintuna halkaas bay u dhiibtay cid kale uma aysan dhiibin haddaysan dhacdo in maaragtay dadka noocaas ay ka gaabiyaan waajibkii saarnaa hadda waxa ay ka gaabinayaan qayb ka mid ah buu noqonayaa waxa laga gaabinayaa ma yara xukunkii shariicadii baa laga gaabinayaa salaadii iyo khayrkii baa laga gaabinayaa diintii in badan oo kamid ayaa laga gaabinayaa marka waxyaalaha laga gaabinayo qayb kamid ayuu noqonayaa sida kuwaas loo daaweeyo ee asna loo daaweynayaa oo maaragtay in wanaag la isfaro in dadka la xusuusiyo xaq lagu leeyahay in maslaxada la ilaaliyo in la iska ilaasho mafsadada waxaasoo dhan baabkeeda ayuu marahayaa marka waajibaadka kale oo dayacan sida loo daaweynayo iyo wadada loo marahayo ayaa mid kaana loo daaweynayaa in la yiraahdo maadaama aysan ayagu ka gaabinayaan annagoo koox aan iskala boodno arrinka arrin sax ma aha waxay la mid tahay midalan adigoo yiraa maadaama aan zakada la bixinaynin dadka aan zakaynayn xoolaha ay haystaan aan ka qaadno si anagu aan u zakayno oo kale bay ka dhigan tahay wax soconaya maaha marka cidda markaas arrinka gacanta ku haysaahay oo si khaldan u isticmaalaysa ama ka gaabinaysa ayada in lagu saxo oo halkaas arrinku uu maaragtay ka hagaago ayaa loo baahan yahay waatan la yiraahdo meesha ku qoyday ayaa lagu qalalsadaa marka meesha ka halaysan hagaaji oo wanaaji ah wax kale oo fawda ah ha samaynin mid kale waxa weeye aan ku ishaaraynaa jihaadku maadaama cibaado jamaaci uu yahay dadka muslimiinta ay sida aan sheegay dadka madaxdooda ah ayaa go'aankiisa iska leh ayaga idinkooda iyo tartiibtooda ayaa laga maarminba siiba gaar ahaan waqtiga hadda mucaasirka ah shacabku waa shacab iska faramaran oo waxba aan haynin dawladaha ayaa ummadaha xukuma ayaga dhaqaalihi haya ayaga militariga haya ayaga hubkii haya ayaga macluumaadkii haya wixii oo dhan ba gacantooda ku jiraanba oo waayihii hore oo dadku ay sinaayeen oo dadka oo dhan ay sayfooda haysteen maanta ma aha wixii way isbedeleen marka xataa fiirisi xagga siiradana saas ayuu ahaan jiray oo nabiga sallallahu alayhi wasallam jihaadka asaga ayaa mas'uul ka ahaa asaga ayaa diri jiray amarkiisa ku socon jiray iyo takhdiidkiisa ku socon jiray waxa kale waqtiga khulafada noocaas oo kale ayuu ahaan jiray marka idanka amiirka iyo maamulka muslimiinta kama u maarmo jihaadku sababtoo ah waa cibaado jamaaci ah oo go'aan cad u baahan oo shuuro u baahan oo awood u baahan intiina hadda xagga dawladda ayay jiraan waqtigii hore dadka jihaadi jiray laba nooc bay ahaayeen waagi dambe ciidan baa la qoray ansaar la socotaan mushaar qaata laakiin waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo waqtigii Abu Bakar iyo waqtigii Umar qayb kamid ah
dad ciidan oo mucayan oo qoran oo magacooda qoran yahay oo liis garaysan oo wax qaataay ma jirin dadka muslimiinta ayaa inta loo yeero ayay bixi jireen nin kasta seeftiisu buu soo qaadan jiray asaga ismasruufi jiray asaga bixi jiray laakiin barigi dambe ciidan baa la sameeyay ciidankii waa tadawuray waagi dambe waxa lagu magacaabi jiray al-murtaziqa bimaana kuwa mushaarka qaata oo ciidan muslimiin ah oo mushaar ku qaata inay ciidan yihiin qayb bay ahaayeen qayb kala jirtay oo la yiraahdo al-mutatawwi'a qof asuu iskeenaya oo hubkiisa wata wixiisa wata oo meesha laga dagaalamayo iyo furuntigu tagaya halkaas uu joogaya oo jihaadkaas khayrkaas uu ka faa'iideeyaa marka labada kooxoodba kuwa imaarad mushaarka qaadanaya iyo kuwa mutatawwi'iinta labaduba qorshaha guud ahaaneed oo dawladda iyo maamulka ay ku soconayaan marka waa laga maarmaan weeye marka mas'aladan waxay la xiriirtaa mas'alo runtii aad looga doodo ah jihaadku idan amiir mu baahan yahay masama u baahna imaam u baahan yahay masama u baahna runtii jiradaas xoogaa baan ka oran lahaa horta marka hore waa in la qeexaa kalimadda iyo wax laga hadlayo waa inaan ogaanaa jihaadka macnihiisa wax badan baa galay mugdi badan baa galay walidaalika kutub al-aqeedah wa aqeedatu as-salaf waa laga hadlaa xajka iyo jihaadka waa la sheegaa oo waxa la sheegaa inay yihiin laba shay oo soconaya oo aan dhamaanaynin inay yihiin laba shay oo cid kasta oo muslim ah ha noqoto baari ama ha noqoto faajir lala sameeynayo baa la sheegaa sababta maxay tahay sababta waxa lagu radinayaa firqada shiicada oo oran jirtay imaamkeena ayuu dabcan imaamkooda u gaarka weeye oo mahdiga ku magacaabaan oo iska qaybka imaamkaas jihaad uu san wadin jihaad maaha walidaalika wixii maamul samar muslimiinta ama wixii soo jihaaday agtooda baadil bay ka yihiin marka kuwaas lagu radinayaa oo waxa la oranayaa aimada muslimiinta iyo madaxda muslimiinta umawiyiintii abaasiyiintii wuxuu dhan khulafaashidiintii waxa ay wadeen oo dagaalka oo jihaadka jihaad sax weeye saas bay qabaan ahlus sunnah wal jamaa'a waana uu soconaya qof kasta muslim oo madaxana jihaadkiisa waa la jihaadaya asoo aan la oranaynin ninkan waa fiican yahay iyo waa xun yahay la oranaynin laakiin shiica waxay leedahay ilaa mahdigeenu yimaado wax ka ansaxay ma jiraan waxa kale uu radinayaa fikradda khawaarijta oo ayaguna inay imaamka shuruud gaar u sameeyaan madaxda la jihaadi karo saasa oo wanaagsan ila aakhiri aan faasiq ahayn aan waxa sameeyay ila aakhiri bay oranayaan ayaduna waa baatil weey marka maadaama qofkii uu muslim u yahay madaxna uu yahay wixii wanaag ah cibaada waa la sameeynaya xajkii buu aadaya ama amar buu bixinaya ama qof asagoo soo amray ba xajkii wadahaya oo yoom arafa asaga xadidahaya wuquufkii buu sameeynaya waxa soo dhan waa lagu raacaya maxaan ku xajkii buu maar uu jihaadaya waa la jihaadaya la oran maayo allah faasiq hada noocaas horta taas baa lagu radinay takala waxa weeye markii asiirada fiisid iyo taariikhda muslimiinta jihaad aysan dawlad wadin oo dawlad maamulaynin dawladdaas haweenaato ha noqoto khilaafaha noqoto ama ha noqoto dawladihii dambe oo gadaal ka yimid yani wax taariikh islaamka ku jira ma aha markaa fiirisid dhammaan dad maamul leh ayaa dagaalami jiray oo jihaadi jiray nabi sallallahu alayhi wasallam markuu joogay isaga maarday jihaadka maamulayay isaga xukumayay marka xukunkaas iyo maamulkaas iyo idankaasi waa suurada guud ahaaneed ay wax ku socdeen weeye waana sida siyaasadda iyo islaamka iyo xataa aqligu keenayo sidaas weeye laakiin hal mar waxa dhici karta in wax la sameeyo sababtoo ma aragtay musiibo cusub baa jirta ama waxba soo dariyay in wixii dawladdu ka jawaabto ama maamulkii la gaarsiiyana lagama gaari karo taasoo kale marka cid ay ku dhacdo waa ka jawaabayaan laakiin macnaheedu ma aha jihaadku uma baahna imaam macnaheedu ma ahane waa xaal istitnaa'iya weeye مثلا تصال عن حديث كي معروف كهبان سوق هذانا مركي أقولوا عربي أو شفتاهي أي صوررين مدينة بنان كذا صوررين كان النبي صلى الله عليه وسلم هليه سي مارت أري ماشي داغة هي جيل أي قاتين أظن إنه وادي للرائعة مركني صحابي هاي عجائب كلها أي أرين كلا كل مي والأورنجر السلامة ابن الأكوع مركني مركو أركان كيو دعي تذكيو حوله قاتي وأركي nimankii inuu daba galo la dagaalamo buu go'aansaday
maxaa yiraahday meesha telefoon ma laha wax kale ma laha hadii uu Madiina tago ka soo noqdana waaba tagayaan nimanka marka xaaladaas oo kale waa xaalada ah dadkay qabsato waa ka jawaabahayaan wixii tabartooda ah laakiin macnaheedu ma aha arinku uma baahna dawladdu uma baahna ma aha uu ka jawaabay nimankii buu cayrshay waa la dagaalamay xoolihii buu ka reebay naftu u keenay asagoo si fiican u galay oo maaragtay maxaan ku daba jooga baa nabiga sallallahu alayhi wasallam ka daba yimaadeen iyo ciidan kale saxaabadii ah xoolihii wixii baa maartay la aruuriyay ninkii wuxuu yiri yaa rasuulallah nimankii aan daba galo nabiga sallallahu alayhi wasallam u diiday wuxuu iska dhaaf nimankaas waa tageen laga ma gaaro waa wuxuu nimankaasi waa xala galeen buu yiri kamana gaari sida iska dhaaf marka waa laba suuradii arinku dhacay oo aan laga gaarin idan qaadasho ninku waa tasarrufay waana jawaabi suuradan dambe oo ah aan daba galo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu iska dhaaf kamana uusan diidin marka hadii la iska sameyn karo oo waxaan la iska socon karaan hada salaam inuu iska sameeyo yiraahdo ya rasuulallah anigu waa jihaadaya adigu ama iyeel ama iga diid uu yiraahdo macquul ma dadkii waa gaalo xoolay qaateen dib bay geysteen waana carareen inkastoo wax laga soo caymiyay marka inuu ninkaan daba galo waa loo diiday waana uu yeelay haduu diidi lahaana dambiile ayuu ahaan lahaa lama ogolaadeen waana qisas macruuf weeyaan marka qisadaas waxay u tahay daliil jaanibka ah hadii wuxuu dariyaan oo sidoo maartay culimadu ay yiraahdaan hadii muslimiinta meel looga soo dhaco ama cadow uu ku soo dhaco ama magaaladii la soo galo hada dadkii inay jawaabaan waa shay laga marmaan si waqtigii hore oo in la xariiro oo la iska warqabay ay adag tahay laakiin maanta oo kale waxa weeyaan maaragtay dawladdu say u dhaqmaan aan sida ay maaragtay wax u maamulaan arinkaas intii waa ka aruursan yahay ayaa isleedahay oo wax ka soo dhacaya maaragtay aan heer dawladeed ama ha noqoto maaragtay nin gobol jooga ama ha noqdo ciidan furunti jooga ama hataa ha noqoto maaragtay booliis maxaan ku meel joogay ayaa ka jawaabi karo wax ka maaragtay aan ka jawaabi karo weeyaan oo maaragtay waxa warkooda iyo informationkooda iyo jawaabtoodu waa fududahay marka mas'aladu waxa weeyaan horta taariikh ahaan saas bay ahayd maantana waaqic ahaan hadda mas'alo runtii amal ka ratimaya ma aha sababtoo waxa weeyaan dawladaha wax maamulaa waxa ka dhacaya dawladahooda ka dhacaya iyo xuduudooda ayaga ka warqaba kana jawaabi kara hadii ka jawaabahayaan marka arinku halkaas ayuu maaragtay ayuu maraya dadka qaar baa daliishanaya qisada Abu Basiir uu sameeyay uu jabhadeynayay waxa weeye jawaabteedu Abu Basiir nin soo hoos gala siyaasadda nabiga sallallahu alayhi wasallam ma uusan ahayn iyo ballankii lagu jiray kuma jirin nin wuxuu ahaa fardi ah marka ama ha dhinto ama ha noolaado ama ha dagaalamo asay khusaysay laakiin ballankii Xudaybiya lagu galay cid ku soconaysay oo waardiyeenaysay nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadii intaas xuduudaas ayay ahayd marka Abu Basiir nin ku jira maaragtay maxaan ku waraha dawladda nabiga sallallahu alayhi wasallam maamulkeeda soo hoos galaya ma ahayn مثلا تصال أهان مركي لقى صنع حديبية وبلنا كلا قلي ما هو بنانان كرتي صحابة مدينة شوكتاي إني قريش ويران ما هو بنانان كرتي ونو صلى الله عليه وسلم عن ضعفان وما بنانين معقول ما لما نقولين ساسوي هدا فرس مثلا خلفاء الراشدين ساسة هايين أيجا جهاد كمعمول هايي مثلا عمر رضي الله عنه صار سعوتان جهاد بدن بقبطي ودن بدن بفرطي مركي ميله يعني قاركود la gaaray in la istaago ayuu amray sida markii مثلا Afriqiya xooga ilaa barqa meesha la yiraahdo ama Liibiya la gaaray hal la istaago yiri markii furus meel fiican la furtay hal la istaago yiri waxa bacaan ahba inuu mamnuucay in badda lagu jihaado uu diiday ayadoo la og yahay sida culimadu ay sheegeen ama ku soo aroortay ahadiista al-ghazw fi al-bahr afdalu min al-ghazw fi al-barr uu diiday Umar radiyallahu anhu markii saxaabi maxaan ku raaa Bahrain joogay oo oran jiray al-Ala al-Hadrami uu sameeyana uu azil Umar radiyallahu anhu uu ku xanaaqay marka Umar jihad ma diidin mana mamnuucin laakiin asaga maamulahaya asaga istaajinaya asaga idmahaya marka waa in la fahmaa sida maaragtay maxaan ku raaa islaamku iyo khulafadu ay ku dhaqmayeen waxay ahayd jihad socda oo dawlad ay maamulayso ayuu ahaa
oo ay joojinayso ay wadayso waana shay iska maarad runtii logic weeyaan maxaa yeelay silmiga iyo xarbiga muslimiinta madaxda muslimiinta iska leh fardi ma yeelan karo kooxna ma yeelan karto midda inta baan kaga baxayaa marka fiirisid yani fuqahada hadalladooduna saas bay maaragtay ka cabirahayaan oo waxa mashhuur ah kalaamka ay yiraahaan wa amru al-jihad mawkuulun ila al-imam wa ijtihadihi jihadka amarkiisa waxa loo wakaalanayaa mas'uulka ah ijtihaadka imaamka iyo ijtihaadkiisa soo ku ijtihaado hal joojiyo hal wado hal aado hal la dagaalamo intaas waqti ila aakhiri wuxuu leeyahay ibn Qudama wayalzamu ar-ra'iyata ta'atuhu fima yarahu ra'iyada waxa waajib ku ah inay ku ateecaan waxa asoo marka uu arko waana sida ay ahayd Umar radiyallahu anhu wuxuu yiri badda lama fuuli karo lagu dagaalami karo waan la joojiyay in laga yeelo waajib ay ahayd wuxuu yiri hadii aad reer furs dagaalkii halkaas joojiya ma dhaafi kartaan waan laga yeelay وهكذا الإمام أحمد بن حنبل في كتاب المسائل أو أسئلة ويلكيس عبد الله ويدين جري وحو ويديي ويري هدي نفير هي قيردان أي يرته dadku ma bixi karaan amiirka idinkiisa la'aantiisa wuxuu yiri maya waa inuu idna amiirku oo maaragtay asagoo idnaabu leeyahay ilaa in amarku maaragtay culus yahay oo mufaaja'a uu yahay ma ahane aan laga gaari karinin in istidaan la weydiiyo ma ahane marka asalku waxa weeye shaqadan waa shaqo dawladeed waa shaqo maamul maxaa yeelay maal bay u baahan tahay maskax bay u baahan tahay awood bay u baahan tahay dibkeeda soo noqonayo dhan waa in la maamulaa wixii dhaawaca daawi u baahan yihiin marka arrin koox ay la dhuuman karto ma ahane waa arrin ummaddu ay leedahay haddii marka wax soo darriyaan oo waxa soo darriyay si kale loo daaweyn waayo tasarrufkaas iska gaaban ayaa lagu daaweyn jiray gaar ahaan waayihii hore oo hadda maaragtay yani xiriirkan iyo waxyaalahaani aysan hadda maaragtay aysan sugnayn علماء قالوا حيلا سال سلطان جهاد كدفعها إذن كما باهنا شاسو كالبالية لكن على إطلاقهم معها وجهاد كالنوع لفتيس الله بالله قال هذا مد أنا أحب لك جارين وأركو اسكو قسمي كاس أصوحه ويا هذا قف كستا دفاع عزم قالها هي مدنا وحا ويا مد وحلق جاره وطبعا تابع هي سياسة هي ترتيب هي أود هي وحسكو أدين أباهن مركب مدك أباهن أود أباهن هي ترتيبته هي وحسكو أدين تأباهن ووقت اللي هلا هي وإن ما ملكي المسلمين تدوروا دسيف في عنو كلام بالربا سوى حلوقة مركانه لكن مدك أنا أحب لك جارين وتولدي ضدك اللي الله ينهيه هذين استفاعان شيء لك مارمان بونغونيا مركز ساس أيام ماركتي أي الله يعني علماء محان كوراه يوكل صاران ابن قدامة وكلا أوليه إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين ووجب على الجميع فلم يجوز لأحد التخلف عنه فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير وضدك معناها يعني عدو سود الدقيب وكان الله إياه ولما أنتم إن الجهاد الله بعض الحلية ما بحيان إنه أميرك إذن ما أهني لأن أمر الحرب موكول إليه أمرك حربك أصغى أي وكيلك وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط للمسلمين يقول أصغى قرني معلومات أصغى هيوليه يقول إن هركا لون نقضه أيها مسلمين يقوليه ونبذ قريفي عن ونرون لكن قدر يا إلا أن يتعذر استئذانه إن استئذان كاس يقرشها سي وسرتوبي ويا معهني لمفاجأة عدوهم لهم فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم مركي وحي حمادان وهدين منك مارته حوغا لطاهيو او خورن بابا ايان ولا اسك علنيا استئذان وما يباهنا لكن waxa laga gaaro oo in meeshii la aado oo loo anbabaxo u baahan waa shay maaragtay dadka dawladda iyo madaxda lagu baahan yahay weeye
gaar ahaan waxa macruuf ahba maaragtay jihaadku haddii mar uu siyaasad u baahan yahay ama u baahan yahay nooc tafkiir ah ama cilaaqaad ay ka dhalanayso waa in dawladdu maamushaa loo baahan yahay badanaa maantana waa noocaas xataa dagaalada wadamada lagu xoreynayo markaa fiilisid oo maaragtay lagu doonayo xorriyadda waa in meel go'aan leh uu leeyahay oo waxaan looga dambeeyo si waxaan siyaasadeeda iyo silmigeeda iyo xarbigeeda iyo muhadanadeeda si loo xukumo oo ilaa hadhow isu maaragtay lasu khilaafaya isku baaba'aya runtii waana wixii ka dhacay dagaalkii afghanistan oo kale oo la isku dayay in dadkaas loo yeelo meel ay ku go'aan gaaraan ay waxaan ka maamulaan kooxay ahaayeen dagaalkii bay wadeen in waxaanu meesha ku dhammaanayaan si fiican loo bisleeyo baa la isku dayay waa la awoodi waayey juhdigii la bixiyey iyo dagaalkii la galay iyo wixii dad dhintay iyo wixii xoolo baxay waxay noqdeen waxaan faa'iido lahayn bay noqdeen maxaa yeelay dadkii waday ayaan isku tala ahayn isku ra'yi ahayn cid ay ka dambeeyaan oo go'aan kale ma jirin walidaalika ayagaa isdagaalay oo isku baaba'ay oo waxaa la yidhaahaa kaabul waxay burburtay dagaalkii xikmatyaar iyo shaah mascuud baa la yidhaha bay burburtay ayagaa burburshay sababtu waxaa weeye dad markii hore isku raacsanaa inay la dagaalamaan raashkii ahayd laakiin maxaa noo tala ah maxaan yeelaynaa waxaana yaa isku xukuma la iskuma raacin marka juhdi fara badan oo la galo oo midho la'aan ah ayaa ka dhalanaya jihaadka aan maamulka midaysan iyo madaxda midaysan aan lahayn waxaan kaloo ka hadlaynaa meeshaan ayadana haddii la jihaadahayo dadka muslimiinta dhiigooda iyo maalkooda in la waardiyeeyo ayaa loo baahan yahay oo dhexdooda aan dhib la soo gaarsiinin walidaalika markaa fiirisid jihaadku wuxuu ahaan jiray muslimiin meel degan iyo gaalo meel degan bay ahaan jirtay oo maaragtay isku dagaalama ama meelo bannaan ama magaalooyin kale isku dagaalama laakiin ma dhici jirin sidii hadda dhacaysa in muslimiinta dhexdooda wax la maaragtay wax ka dhacahayaan oo wixii dhaca marka la xisaabtamo waxa ku baaba'aya ee muslimiintii ay yihiin qaarkood ama u badan yihiin walidaalika muslimiinta dhiigooda inuu xaaraan yahay la iska ilaasho loo baahan yahay aan la fududaysan aan la ta'wiishan aan la tasaahulin oo mas'alada aad runtii loogu talax tegay oo la yidhaah tataruska oo maaragtay leeyahay gaalkan baan dilahayaa si aan u dilana hadda wuxuu marto shaqadeeda ma ah la leeyahay ama la leeyahay yubcathuuna calaa niyaatihim oo qofku uu asagu maaragtay iska dhigahayo inuu la mid yahay qadar Allah subxaanahu wa tacaala والحديث يبعثون على نياتهم قدرت إلهي بل لقى الله إياه فعل بني آدم لقى الله ما بني آدم فعل كيسة مسؤول بكيه وحكى إيمانا إياه مسؤول بكيه هي وحكى إيمانا إياه ضمان بالقولية هي أما الدية القولية أما كفارة القولية على كل حال مركا قدرت إلهي تدهلاقي فعل كاس أوكر إن يعني لقوا قياسته وخرج ويان قف مسلم كاهي فعل كيسة وكم مسؤول مرك إن مرنا قدرت إلهي سبحانه وتعالى لقى قياس قاطعي وحمارة صحة معها أما إن لسكت دقه سيد حديث قاركود قصة أرورتي العجماء جبار قرتي حيوان كأي أوحى أو حسمي وكسوقات كلاهين حيوان كيا ليلها وقرم يزيد لكن في بني آدم كمسلم كمسؤول وياه فعل كوصمي وإنه مال صار له بهاي ودبك يرأيه ومصلحة بضيه مركا وحنا دجالنا يا جارو هل كان بديليا تضام مسلمين دمان عيسى أما مدفع عن توره عن مسلم بكل عياه كيسو تورانا مسلم بكل عياه جهادنا واسعنا يا أرن صحة معه ولذلك وحنا نهاي إن ضدك مسلمين تديك وذي مال كذا أذلوا إلى شو بالغ مارمانه إن شبهة وحي إجلان لسك دايو مرة دي شبهة تماده إن لا توقفه أي أصلحة أي أحوطه أي وناكسن سيد حديثكها فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه بلو بهية ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام نكلم حويه إن قف قال وكاف كضه ومسلمين أي كاف كذان قال كسبتيسا أما قال وكف كضه مسلمين سببته ذا أياك أجرون إن مسلمين اللي يسد قال سببتيس
يعني هذا وانا sheegaynay يعني maka dagaalkeeda waxa loo baajiyay dad muslimiin ah oo cadadkoodu uu yaraa ayaa loo baajiyay gaalo waaweyn baa joogto khatar ah oo in la laayo mudan oo dib fara badan geysatay laakiin dhowr qof muslimiin inay wax gaaraan ayaa laga baqay maanta waxa arkaysaa maalin kasta ama usbuuc dhowr jeer ayaa tobanaan muslimiin dhimanaya ayadoo leeyahay gaal baa loo socday ama hal gaal baa la dilay ama gaari baa la qarxiyay ayadoo oranayo marka in muslimiin in gaala ka fakato adoo muslimiin nabad gelin haya ayaa ku dhaanta in muslimiin aad leysid adoo gaal daba jooga ama raadsanaya ولذلك عمليوينك lagu dagaalamayo oo muslimiinta dhexdooda ka dhacaya oo muslimiinta galaafanaya oo maaragtay aan loo aabayeeleynin arrimo khatar ah oo diini aan sax ahayn oo u baahan laga fiirsado baanu arkaynaa mid kale waxa weeye jihaadku aadaab iyo akhlaaq buu leeyahay waxa weeye in kastoo gaalada la dagaalamayo oo la iska celinayo laakiin aadaab baa jirta akhlaaq baa jirta jihaadku akhlaaq buu waardiyeynaya islaamka ayaa la waardiyeynaya marka islaamka la waardiyeynayay inuu jihaadku burburiyo sumcadiisii iyo aadaabtiisii iyo muuqaalkiisii wax sax ma aha waxa khalad ah in loo maleeyo in maaragtay jihaadku iska soconayo uu yahay shay maqsuud lidaatihi ma aha waa soo marnay maxaan ku rahaa maaragtay kelimada culimadu yiraaheen waxa loo baahan yahay kitaabun yahdi wa sayfun yansur marka dagaalka iyo seefta iyo xabadu hidaayada waardiyeynaysa ayada ilaalinaysa laakiin hadii hidaayada ay burburinayso oo sumcadii iyo dacwadii iyo islaamkii uu dhulka galahayo arrinkaas khatar weeyaan walidaalika in aan balan aan la waardiyeynaynin oo gaal meesha lagu arko la dilahayo oo maartay kii kula dagaalamay kan kula dagaalamin kii ku difaacayay kan ku difaacaynin heer waxa la gaaray xataa gaaladii dadka daaweynaysa xataa in la laayo ayaa la gaaray waa shay la yaab runtii barigi maxkamadda waxa dhacday maartay niman gaala oo saxafiyiina oo acmaashii maxaakimta iyo kulamadoodii iyo shirarkoodii iyo mudaharaadkoodii iyo waxqabadkoodii baahin hayay oo adduunka gaarsiinayay ayaa la dilay ayadoo la leeyahay waa gaal وهكذا marka muslimiintu waa inay runtii ay ka fiirsadaan oo wixii gaala ah oo wadanka muslimiinta soo galaya oo ammaan ku soo galay oo dana kale madani ah qabanaya ama dan gaar asaga ha noqoto ama qof kale muslim ah hal la wadaagee in wax la yeelay shay banaan ma aha in la dilo ama dhiigiisa la banayso ama xoolihiisa la qaato ama la afduubto ayadoo la iibsanayo waxyaalaha sumcadda naga xumeeyay bay kamid tahay oo muslimiinta runtii ballankooda burburiyay ay kamid tahay wax banaana runtii ma aha mid kale waxa weeye ayadana aan ishaarayna sida aan sheegaynay jihaadku waa fariida soconaysa weeyaan sida ku soo aroortay aasaarta qaarkeed maadiya ila yawm alqiyaama laakiin cidda wadaysa iyo cidda maamulaysa sida aan sheegnay dadka muslimiinta madaxdooda weeye maxaa yeelay waxa la isku raacsan yahay muslimiinta siyaasadooda cidda maamulaysa koox ma aha qofna ma aha waa muslimiintana cidda madaxdooda ah ayaa masalaysa wixii khalad ah hada si loo saxo ayaa jira si loo daaweeyaa jirta laakiin in maxaan ku raahaa qof aan madax ahayn oo madax iska dhigo oo muslimiintii asagu uu dib u soo jiido shay banaan ma aha marka waxa weeye marka la leeyahay al-jihaadu maadin ila yawm al-qiyamah inuu maalin kasta waqti kasta soconaya macnaheedu ma aha waxa la diidayaa oo lagu radinaya dadka oranayay ma hadii ka hor lama dagaalami karo baa lagu radinayaa oo lagu daaweynaya tan kale waxa weeye in jihaadka la niyeysto oo la jeclaado oo qofku maaragtay u diyaar noqdo waa shay diintu amaantay xadiistan ku soo aroortay weeyaan nambarka 19aad waxa weeye dadka muslimiinta ah waa dagaalamayaan heshiisna waa galahayaan duruufta adduunka sida iska ah qof diidi kara ma jiro nabiga sallallahu alayhi wasallam oo malaa'ig ay difaacisay oo malaa'ig ay maartay dagaalka la galaysay ayaa heshiis galahayay oo ka maarmi waayay ayaa la fariistay gaal oo maartay wax la saxiixday oo markii la saxiixay oo Abu Jandal uu yimid oo ordahaya oo boodboodahaya nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkii la saxiixday ayuu bariyay warninka iida warniyo saas hayeelin ninkuna abihiis buu ahaa ninkii waa diiday wuxuu yiri ma jirto ku deyn maayo hadii midaan aadan ogolaanin oo aadan fulin wax heshiis kula gali maayo
ورمية كده نيك واديدي النبي صلى الله عليه وسلم أيها نكاس كبر يحيى إنه قال كان إنه نكاس مسلم كأه وفوتيه سي سماله إتراه أما أمارة كعافية أما أرن كان وكاستثناء نكين واسوتشي استي وحو استاجي وإن لعلياه نكي بوجيتي أسقو قيلن هيا ومارة أويه هيا أيها لقيت شيء ماشيو قال لي أوضتي تسمح له يلهيا ولو خصبيه دن هيا لقى أركي وعلى النصان هيا دعوة في ذيسا فرصة بالغة لهيا مركب مسلمين إن صلح جلان ويهودنا جلان وموادعة جلان أو حتى جلان محالفة أي لحلف تمان قال دانته واحد إكرويان هرنا والله صو أركي آخر الزمان كان سيكون صارت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحإيمانه يسا وقتي مسلمين تو يدد كريستانه أي تحالف سمين يانو أي لدق على ما هيان قال كله حديث شيء جيس إلى دق على ما هيان مركا التحالف كاس ما دام ومسلمين تو عن قدرين يصنع ولا سمين مركا وإحنا قلنا أنفعها هي وودنا أنفعها هي ومصلحة إنه أذيق هي أما أيان سمين سنة وما رتديجين ما نفسنا ورديين هي ودنبين وحويه جهاد كسان شيخني وعمل جماعة وعمل مارد الدوليات وعمل أمضيات تذكر جماعوين كأي دعوة عليهن وحشيق عليهن لكن إن الجهاد أيوه يقولان كيس جاران وأيوه أي أمضى الدجال الجليان وأيوه السلم أي حرب المسلمين تأي كوح ما مشه أرن كاس الديني أنا أرن صح معها محير كوح ضاني ماشي كنت شنا يسه يعد حتى أي لفت أديبتي marka la leeyahay muslimiinta madaxdooda waa inay shuuro ku yimaadaan waa in la doorto al-qawiy al-amin waa in ila aakhiri waxa loo jeedaa qofka xataa si fiican loo soo doortay ayaa shuuro lagu lifaaqa ayaa muhaasabo iyo muraaqabo laga dabageeya si go'aamadiisa looga warqabo laakiin koox aan la garanayn ama la garanayo laakiin duruuftooda ay u saamaxaynin inay ummadda wax la wadaagaan inay ummadda go'aamadeedii qaadato xaqna uma laha diin ahaan wax banaan ma aha وحتى اتبرتي ليهين ومسؤوليتي دي قادة كران ما أها تنكله كوحي إن أيو ترى وحن كل شيء هذا كوح كله أما أيو ترى عدي خلاف سنة أيان دي لها يا أما عدي يقبح أيان لينا يا أرنك لما أقلا وحلين كرا وعدي لطلق على تسكيلين كراهي ودولة عدي لطلق على أنت بغات معلومة عابا أما خوارج بنغون أيان أما وحكي نغون أيان ما ملكاس أيام مصلحة جودها هذا مسلمين تا وارديين يا عدي خطر كأهنا مسلمين تا أيا ماركت لا أركيسة أيا قانا للدفاع هيو مارد كعيلنا هي مركا جوي يا نظام هذا اللي سكوه بينكره أيا لودي بينكره هجانك أيا لودي بينكره نبضة أيا لودي بينكره محنك ورا دجالك لكن جوي قرصون وظروف قار أي هيسته أو سي ماركت ودبتون إن أسقوا حلو دبتو أما أسقوا يلوى اللي دبتي أما أسقوا مرقصده وحو حق ليه هي runtii ma aha waana meesha runtii yani dibku uu ka jiro caalam islaamiga meel fara badan sida saxda waxa qofka muslimka ahi hadii asaga uu ra'yi uu qabo muslimiintu dhexkeenaya culummo buu dhexkeenaya waxa garadka buu dhexkeenaya hadii lala qaato go'aanka la wada gaaro hada qayb uu kaleeyahay ajab uu kaleeyahay hadii laga diidana dadso dambi ma laha marka waxa dambiga ku leedahay iyo waxaan ku lahayn horta kala faham qof marka asagu ma aragtay mushkiladiisa gaarka wata oo doonaya inuu muslimiinta dhexdooda ku xallisto mushkiladiisa amnigiisa ku ilaashado arinkaas runtii arin khiyaano gaarsiisan ayuu ahaanaya runtii jihaadku ahkaamtiisu aad iyo aad ay runtii iska farabadan tahay waxaan ku soo khatimayaa dadka qaarkood ayaa waxa iska qasma masalada maslaxada nafta iyo maslaxada diinta oo waxa sax ah maslaxada diinta la waardiyeeyaa oo nafta loo huraa oo maalka loo huraa waa sax laakiin waan soo marnay hadii meesha diintu ay ku maarada ku cizoobaynin oo lagu duloobahayo oo lagu baabaahayo hada naftiina waa baabaaaysa diintiina cizi ka helimayso marka meel nafta ku baabaaayso diintuna ay maartay haba ka helaynin meel maartay lagu lugo'i karo ma aha walidaalika waxa weeyaan nafta waa la bixinayaa laakiin meel maslaxad ku jirto oo la arkaya lagu bixin hayaaye meel naftiina ku baxayso diintiina maaragtay ay ku hungoobayso
arrinkaas culimadu way diideen sida laga soo warinayo ama uu leeyahay al-Izz ibn Abdissalaam uu leeyahay arrinkaas waa taqriirun bin nafsi fi ghayri faa'ida nafta oo la daga weeyaan faa'ida la marka ayaduna socon maysee marka nafta hal iska dilo diintu ma qabtee nafta in lagu baxsho meel fiican oo faa'iido leh oo natiijo leh ayaa kamida ahkaamta jihaadka wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh